waxaa jiray shakhsiyaad aad u yar oo maskaxdooda har iyo habeenba ugu shaqayn jiray dalkooda iyo dadkooda si ay ugu difaacaan cadowga duulaanka ku ah dalkooda, diintooda iyo dadnimadooda, yacni jiritaankooda. haddaba shakhsiyaadkaasi waxay taariikhda iiga soo xushay mid ka mid ahaa dadkii ugu weynaa uguna sareeyey dhanka hoggaaminta xagga dagaalka. waa najmuddiin xasan, laakiin ku caanbaxay magaca ah xasan al-rammaax. xasan wuxuu ahaa hoggaamiye, sidaasi oo kale wuxuu ahaa nin aad u caqli badnaa. wuxuu horumar weyn ka gaaray samaynta iyo alifaadda hubka dagaalka, inkastoo dadkii uu ka dhashay ee carabta ah ay aad u xaqireen taariikhdaasi. malaha xaasidnimo beerka ka degtay, laakiin xasan waxaa xusay oo ilaa ay iminkaba xusa waddamada reer galbeedka. xasan al-rammaax waa ninkii ugu horeeyey ee taariikhda abad ay xusto, ninkii alifay oo sameeyey waxa maanta loo yaqaano gantaal ama waxa loo yaqaano torbido. xasan waa ninkii sababtu u ahaa in carabta iyo muslimiinta ay ka guulaystaan reer galbeedka. waa ninkii ka yaabiyey ciidamadii mangooliyiinta ee baabi'iyey baqhdaad. xasan al-rammaax waxa uu qoray buugaag badan, laakiin waxaa ugu caansan buugaagtiisa buug uu kaga hadlay nuucyada kala duwan ee hubka iyo waxyaabaha qarxa. waan ogahay ereyga qarax qaarkeen in aysan jeclaysan oo wadna xanuun uu ku yahay. xasan al-rammaax waxa uu alifay aalad gantaal ah oo awood u leh in ay burburiso maraakiibta iyo doomaha. xasan wuxuu adeegsaday baaruud, laakiin ogow, baaruudda ma ahayn wax uu xasan ikhtiraacay, oo taariikhdu waxay sheegaysaa in baaruudda ay heleen dadka Shiinaha. waxaase waxtarkeeda ogaaday xasan al-rammaax. sidaasi oo kale xasan waa ninkii ugu horeeyey ee sameeyey waxa loo yaqaano bambada. waa ninkii ugu horeeyey ee sheega ama ogaaday in baaruudda loo adeegsan karo waxyaabaha qarxa. xasan waa ninkii ugu horeeyey ee buug ka qoraa aaladaha dagaalka loo adeegsan karo iyo noocyadooda kala duwan iyo waxtarkooda. sidaasi oo kale xasan al-rammaax waa ninkii alifay bambada dadka ka ilmaysiisa, laakiin maanta loo beddelay gaaska dadka ka ilmaysiya. xasan al-rammaax waxa uu noolaa xilligii dowladdii mamaalikada, wuxuuna ahaa injineer dhisa qalabka ciidamada ay dagaalka ku galaan. wuxuu noolaa qarnigii 13aad ee miilaadiga, isaga oo geeriyooday sannadkii 1294 miilaadiga.